لبيب من استنار بدربه بالعلم نورا واتخذ التقى حللا ما كان يرفع مرءا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu ka hadli doonaa qisadii guusha ee Ibraahim al-Fiqi. qisada Ibraahim al-Fiqi waa qiso guul ah oo u qalanta in la sheego. Ibraahim al-Fiqi waa nin u horay noloshiisa intii ugu badnayd inuu dadka kala baro sida looga gudbo caqabadaha ka hor yimaada intay ku jiraan socdaalka ay guusha ku rabaan. Ibraahim al-Fiqi wuxuu noloshiisii intii ugu badnayd ku bixiyay sidii uu u faafin lahaa fikir iyo akhlaaq togan. wuxuu u arkay sheekada noloshiisii in ay tahay tusaalaha ugu fiican ee qof gaaray caaninimo iyo lacag. noloshiisii hore ee Ibraahim al-Fiqi iyo sida uu heerkan u gaaray. Ibraahim al-Fiqi noloshiisii hore waxay ahayd mid ka duwan nolosha dadka kale. wuxuu ku dhashay dalka Masar sanadku markuu ahaa 1950kii. wuxuu digrii jaamacad ee ugu horeysay ku qaatay kulliyadda dalxiiska iyo hoteelada. kadib qalin jebintiisii waxay ahayd sanadku markuu ahaa 1978. isaga iyo xaaskiisii waxay u socdaaleen dalka Canada si ay u helaan nolol fiican. markii uu yimid, dadkii uu la kulmay ee Canada joogay waxay u sheegeen in uu dalkiisii isaga noqdo maadaama aanay waqtiga waddanka ka jirtay camal la'aan. Ibraahim al-Fiqi lacagtii uu markaa haystay waxay ahayd $1 oo kaliya. dareenka xoogganina muu niyad jebin, balse Ibraahim wuxuu bilaabay inuu shaqo raadsado. wuxuu galay waraysi shaqo mid ka mid ah hoteelada dalka, waxaana uu sheegay maamulihii hoteelka, kuma habboonid shaqadan hoteelada. Ibraahim wuxuu ka tegay halkii isagoo niyad jabsan, balse wuxuu go'aansaday in uu quusan. 2 maalmood gudahoodna wuxuu helay 2 shaqo. labada shaqo tii ugu fiicneed waxay ahayd inuu dhaqo weelasha cuntada lagu cuno mid ka mid ah hoteelada dalkaas. inkastoo shaqadaasi aanay ahayn tan ugu fiican, haddana wuu aqbalay shaqadii isagoo ku adkaystay inuu socdaalkan ka soo bilaabo meel aad u hooseysa ilaa uu ka gaaro meel sare. Ibraahim wuxuu si degdeg ah horumar ugu sameeyay shaqadiisii. marka ka dambaysa wuu sii dalcaayay ilaa uu markii dambe ka noqdo maamulihii hoteelka. intaa kadib wuxuu ku guuleystay abaalmarin ah maamulaha ugu fiican hoteelada ee Waqooyi Ameerika. intaa kadib haddana wuxuu noqday mid ka mid ah dhiirigeliyaasha ugu weyn ee dalka Canada, dhammaan Carabta iyo wadamo kale oo badan. Ibraahim wuxuu casho ku casuumay ninkii hoteelka lahaa ee markii ugu horeysay diiday. intii ay ku jireen wada hadalkoodana wuxuu u sheegay in uu yahay wiilkii yaraa ee berigii diiday. haddaba maxaynu ka baran karnaa qisadan? dadka guulaha gaara wax muhiimad ah ma siiyaan diidmada. midda labaad oo ka faa'iideysan karna waxay tahay inaad naftaada ku kalsoonaato.